inaan ka hadlo waayo wixii xagga dowladda ah ama xaggii baarlamaanka taasna oo cad oo ay u tahay horudhac dhibaatadana haysata waqtigan iyo probleemka aan ku jirno iyo musiibada nagu dhacday dowladdii hadda curatay marka isugu walaalo soomaaliya isuga hees wadani baan idiin shiidahayaa danna markaasaan hadalkeena bilaabanaynaa sharafta leh annagoo iska ilaalinayna wixii xaan iyo wixii dembi ah oo wixii jira oo xaqiiqda ah ka hadlayna dowladdan way naga wada dhexaysaa idinkama xigo shacabkii soomaaliyeed baynu nahay waana u wada siman nahay dhibka waana wada haystaa may garat asalaamu calaykum soo dhawaada heeskaan idiin shidahayaa dan markaasaan arrinteena bilaabanaynaa wixii akhbaaraan idiin hayo wixii aan wada hadli karno oon ka wada hadli karno ama isdhaafsan karno wixii dood ka qabana wuu igala hadli karaa gacantuu soo taagan karaa ma garat muxaafid waa noqon kartaan mucaaradna waa noqon kartaan qof walbana xaq buu u leeyahay inuu igala hadlo soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haysoran idinkuma arkaysi afka buuxso hays oran idinkuma arkaysi aqalla jeexo haye soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa asxaabteyda soo dhawaada mucaaradkaygii soo dhawaada muxaafidka soo dhawaada dhegaysta dhegaysta adiga laga dhigo arlada haddii lagugu aamino uu shaqeeyo adiga laga dhigo ran idinkuma arkayse haysoran idinkuma arkayse la jeexo haysoran idinkuma arkayse afka buuxso haysoran idinkuma arkayse ma lagu garanayo shaqeeyo adiga laga dhigo arlada agugu aamino uu shaqeeyo adiga laga dhigo idinkuma arkayse jeexo haysaran idinkuma arkayse afka buuxso saran idinkuma arkayse jeexo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي سؤال إذا كما ركيسة أفك بوحسة
haysoran idinkuma arkaysa aqala jeexo haysoran idinkuma arkaysa lagu garan maayo waxaa rabta qoosh waxaa rabta laay waxaa rabta baabi waxaa rabta boob waxaa rabta dhac waxaa rabta gub waxaa rabta dil waxaa rabta maxay hayteen qarxi haysoran laguma arkaye laakiin waa lagu arkayaa maanta lagu hayaa gacanta lagugu hayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت الصومالية وايدين وضع السلامي ملك استاجوكتان هرت وحان إذن كره اللي يمان تعريم حساسية مدحتوية هذا اللي يقصوعي oo la iga sheegay arrimo xasaasi ah ka jirto madaxtooyada wixii jirana waa inaan xaggan uga tabiyaa baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo aqalka sare iyo aqalka hoose because dawladdan annaga inoo dhalatay annaga hadday noo wanaagsanaatana annagaa sharafteeda leh hadday noo xumaatana dee annagunbaa ku xun marka waxaan rabaa horta first inaan ka dhaadhiciyo soomaalida qolka ku jirta ama meel kasta iga dhegaysanaysa horta aniga khalad ha iga fahmina ha ii qaadanina aniga walaalka inaan nabcahay ha ii qaadanina dumaashiday inaan ku dheganahay ha ii qaadanina dawladda inaan anti ku ahay dawladdan way naga dhaxaysaa walaalkayna shacab soomaaliyeed baa doortay waan jeclaan lahaa ballantii uu qaaday inuu fuliyo waan jeclaan lahaa ballantii uu kutubka gacanta ku maray inuu fuliyo waan jeclaan lahaa asagoo maxamed cabdullaahi farmaajo ah inuu hawshiisii uu maxay hayteen uu hawshiis siday tahay uu qabsado marka sababta aan u soo istaagay miidiyaha ama sababta aan raba inaan uga hadlo waxa weeye horta kow soomaaliyay haddaan soomaali nahay waddankeennii dagaal sokeeyaa ka dhacay dib heshiin soomaaliyeed baa lagu suubiyey dowladdii jabuuti allaha madaxiisa allah ka raajiyey xafidullaahi madaxweynaheenii aabbihii soomaaliyeed ismaaciil cumar geelle ayaa dib heshiin ugu heshiisiiyey carta dowladda jabuuti 4.5 marka nin walbana kursigiisu leeyahay federaal in loo wada qaybsadana way qurux badan tahay nin walbana hawshiis inuu raacdo way qurux badan tahay okay midda labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo marka maxamed cabdullaahi kursigu ku fadhiyo waa foorkii khayr beelana wuxuu ku fadhiyaa khayr laawana wuxuu ku fadhiyaa kursigii hawiye okay dib malahan hadduu seedigis keensaday laakiin waxaa fiicneed sidii sharafta lahayd walaalkay mas-uulka u qaaday inuu ballanti u fuliyo khayrana uu hawshiisa qaabsado maxamedna hawshiisa qabsado qof walba howl buu leeyahay oo dalka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed calanka soomaaliyeed ee soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogaan ay ku soo hiroobi lahaayeen oo maanta annaga idinla hadlaayo qurbaha dadkeenna joogana ay berritay ku soo hilaabi lahaayeen waddankoodoo nabad ah markee waddankeena waa u baahannahay asagoo nabad ah waa u baahannahay dawlad caadila ka jirto waa u baahannahay nabadgelyo iyo nolol ka jirto waa u baahannahay soomaalida inaan tahriibka ku baaba'aysa meelaha magafiyaasha ku haysta xabsiyada adduunka ku jira in dawlad maanta waxaasoo dhan ay gacanta ku dhigto oo wixii xabsiyada ku jira laga soo fogo waxa magafa haystana laga soo qabto wixii meelaha ku baaba'ayana dalkooda lagu soo celiyo waa wax loo baahaya markaa dawlad leedahay sharaf baad leedahay markaad dawlad lahayna sharaf ma lihid okay waxaan rabaa soomaaliya marka su-aal baan idin weydiinayaa marka waxaan idin weydiinayaa waxaan u malaynayaa dawladdan way curatay sanad ma gaarin ilaa ay haddana waxaan ka bixin lahanaa dhibaato iyo buuq iyo qarax iyo dil iyo nin etoobiya loo dhiibo dad shacab la xasuuqo xildhibaan guriga lagala baxo dad la laayo guryaha loogu yimaado lagu laayo marka soomaaliya waxaa idin weydiinayaa ma is weydiiseen maxaa ilaa heerkaa gaaray in dhibaatadaas dawladda si ay kursiga u fooshay in dhibaato laga bixi waayo ma is weydiiseen ilaa hadda baarlamaankii wuxuu go-aan u gaari laayahay ma is weydiiseen soomaaliyay maxaad u malayn kartaan marka haddii aad dib ugu noqotaan arrintaas maskaxdiina dib ugu noqotaan inay arrintaa koosgaraynayso okay arrintaa waxay koosgaraynaysaa labada qof oo mas-uulka dalka ka ah waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayr beele okay waxaan halkaan ognahay ama baarlamaanka og yihiin ama shacabka soomaaliyeed og yihiin ama dadka xoogaalka og yihiin maxamed cabdullaahi dawladdan inuusan shaqo ku lahayn dawladdan ninka maamulahaya uu yahay khayre okay labadii kursina khayre inuu isku haysto okay dhibaato badan baa waddanka kusoo dhacday dhibaatada kusoo dhacday maxamed dhowr jeer buu khayre kala hadlay inuu iscasulo sharaf barkee sharayto sharaf buu kursiga u dhiibay haddana inuu sharaf uga dego maxamed si gaar ula hadlay kor iyo hoosuu kala hadlay khayre wuxuu taagan yahay khayre iyo xaaska maxamed waxay taagan yihiin in kursigu laga wada dhaco maxamed cabdullaahi iyo khayre inay kursiga ka wada dhacaan oo la wada casilo
soomaaliya waxaan weydiinayaa nin naag dhan oo la qabo oo marwe ah oo ninkeedu madaxweyne yahay ma dhici kartaa naagta ninkeedii inuu qabiil uga weynaado ay ninkeedii tiraahdo adaa dhacaya khayre ma baxayee waa wada dhacaysaan bal su-aashaas soomaaliya idinkaa idin dhex dhigay arrinta hadda iga soo gaartay dhowr jeerna waa maqlay madaxtooyada waa la iga sheegay maxamed iyo khayre inay isqabsadeen dhib kastoo dhaca maxamed inuu kala hadlo khayre inuu ka wada fariistaan inay naagtii tiraahdo xaaskiisii maxamed cabdulaahi inay tiraahdo khayre ma degaye waa wada degaysaan ilaan maxamed cabdulaahi waa ninkeedii caruur baynu haysaa maxaa kalifay inay ninkeedii rabto kursiga inay ka dejiso naag waa la arkaa ninkeeda dhaqaalaysa naag waa la arkaa ninkeeda garabkiisa istaagta naag waa la arkaa ninkeeda ceebta ka ilaalisa naag waa la arkaa ninkeeda dhista laakiin arrintan oo kale soomaaliyay naag ninkeeda rabta kursiga inay ka dejiso calashaan inay shala qabiil ku barata ay tiraahdo waad ka wada degaysaan khayrar kama dejinaysid kursiga maxay tahay arrintaas soomaaliyay falanqeeya ma maxamed baa qaba mise khayraa qaba saynab ma maxamed baa qaba mise khayraa qaba waa su-aal soomaali u taagantahay waa su-aal soomaali maxamed u taagantahay okay arrinta hadda iga soo yeertay madaxtooyada ee maxamed cabdulaahi iyo khayre ay ku wada shireen oo saynab dhex fadhido uu yidhi maxamed cabdulaahi dhibaato badan baa igu dhacday dhibaato badan baa intaa waddanka hayay dhibaato badan baa dhacday qarax badan baa dhacay nin yahow anaa kursiga ku keenay sharafta uga deg aan sharaf kuu keenay ha igu ceebeen ceeb intaasaa igu filina xaq ilaahay miyaa inuu yidhaahdo khayre waa isla dhacaynaa saynabna ay tiraahdo waa isla dhacaysaan khayre ma ka degayo kursiga mana iscasilayo waa inaa isla dhacdaan adiga khayre kursiga waa inaa ka wada degtaan haddee khayre ma baxayo adigoo meesha madaxweyne ka khayre ma baxayo ama waa wada dhacaysaan ama waa wada joogaysaan waa su-aal soomaali u taalla ee madaxa daalinaysa ee dib isugu noqonayaan soomaali weyn ma khayraa qaba mise maxamed cabdulaahi baa qaba maxamed iyo ayada maxay isku yihiin khayre iyo ayadana maxay isku yihiin waa su-aal meesha soomaali u taalla waa su-aal soomaali u taalla okay marka anigu waxaan rabaa marka inaan halkaan ka hadlo arrin kaleeto ayada ka soo yeertay baa la ii sheegay lay soo wacay arrinta dadka loo xasuuqayana waan sheegayaa horta ninkii maanta hadlay ee ugaaskeenii mareexaane maanta ka hadlay yidhi maxamed cabdulaahi mas-uul nagama aha horta mas-uul nagama aha maxamed cabdulaahi kursiga in laga dejiyo wey hadduu khayre ka digay hadduusan khayre la dejinaynin uu yeelaynin khayre in laga dejiyo kursiga labadoodaba in laga tuuro waayo waa ku raacsanahay ugaaskeenna mareexaan ee maanta ka hadlay miidiyaha waa ku raacsanahay waa markii labaad uu ka hadlay miidiyaha ako maanta waxaa iiga soo yeertay madaxtooyada saynab maxamed cabdulaahi naagtiisa iyo khayre inay ku wada heshiiyeen maadaama 4.5 yahay arrintan uu khayre baabi'inayo dadka laynaayo uu xasuuq u xasuuqaayo asagoo higsanaya dagaallo hore u soo dhacay khayre ama qabiil keliyaada murursade in ay tiraahday saynab annaga maadaama aan qabiilkan ka dhalannay dowlad dambena ku soo noqon mayno madaxweyne dambe iyo prime minister ban ma soo gelayno marka kursigan foorka ah ee magaca daarood uu maxamed ku fadhiyo wasakhay waa inaan wada wasakhaynaa si daarood mar dambe kursiga usoo haweysan oo looga aamin baxo si kursiga daarood mar dambe usoo gelin oo looga aamin baxo meeshaan annaga soomaali ka marna uu daaroodna ka maro aadi bal arrintaa ka jawaaba soomaaliyeed arrintaas ka jawaaba soomaaliyeed oo looga aamin baxo oo kursi dambe daarood ama uu isugu soo sharixin prime minister ama uu madaxweyne isugu soo sharixin oo cid dambe oo aaminaysana aysan jirin sababta aawadeed ayuu khayre arrintan foosha cunle u samaynayaa ay raalli isaga yihiin qabiilka mursida la yidhaahdo ay saynabna mas-uul ka tahay arrin ay ku soo heshiiyeen ee qabiilkooda ay ku fariisteen fadhi ku wada gaareen ee go-aan lagu wada gaaray weeye mursade iyo kaaba qabiilkooda in shaatiga daarood la wasakheeyo la isla baxo daarood dambena la aamini kursiga daarood dambena uusa soo haweysan ee daarood dambena prime minister isku soo sharixin madaxweynena isku soo sharixin ee ka soo yeertay saynab cabdi macalin ay ka soo yeertay saynab cabdi macalin iyo khayre iyo qabiil keliyaada murursade taasna waan idiin hayaa xasaasiyad weeye maanta ayaa madaxtooyada layga soo wacay markee waxaa u joogta madaxtooyada islaan isaaqa oo toronto ka tagtay oo dadkan wax fooxiye ah oo dadkan faaliyaha guriga u joogto
waxaa lagu heshiiyey in dowladdanba haddii la dhisanahayo madaxweyne hawiye noqdo prime ministerna isaaq noqdo madaxweynena isaaq noqdo prime ministerna hawiye noqdo total minti daarood dambe inaan la aamin marka sheekadaas ayaa maanta ka socota madaxtooyada qabiilka liyahda murursada go-aankaasi ku gaareen magaca daarood inay wasakheeyaan kow laakiin ma wasakaynaysaan daarood waa qabiil dhan ninkaa maanta guriga kuugu xiraya waa maxamed cabdullaahina daarood oo dhan mas-uulka maaha kursiga hadduu maamuli waayo uu khayre ka dejin waayo waa la wada saarahayaa israaca kursigan daarood baa iska leh daarood baana waqtigiisa dhammaysanahaya taa waa habeenka xali ka tegey murursadow saynabey khayrow haddaad arrintaas isku afgashateen iyo oday dhaqameedyadiinnii ma idin soconaysa kursigan daarood baa iska leh asagaana maamulka wadanahaya inta ka dhimanna asagaa maxay wadanahaya waxaan rabaa marka baarlamaanka guddoomiye baarlamaanka aqalka sare jawaari waxaan idinka codsanayaa kursigan birito fadhiga aad yeelan doontaan maxamed cabdullaahi waa nin sixran nin fiyow ma aha waa nin sixran inta waddanka lagu samaynayay dhibaatada lagu samaynayay kama uu warhaynin qol buu ku xirnaa arrintan waa arrin ay ka shaqaynayeen qabiilka la yidhaahdo murursade iyo xaaska maxamed iyo khayre waa arrin lagu heshiiyey in shaatiga maxamed in la wasakheeyo shaatiga magaca daarood in la wasakheeyo okay maxamed cabdullaahi nin kombareeda maaha waa nin sixran total mintiba sixir iyo fashilaada loogu daray marka kow birito haddii maxamed cabdullaahi uu aqbali waayo khayre in kursiga laga tuuro waxaan idinka codsanahayaa nadhaafiya guruubkan eylada ah ee dadka shacabka laynahaya ee xildhibaanada guryaha ugu gelahaya ee boobka ku jira ee tuugada ah nadhaafiya kursigan kursi daarood weeye nin kaloo daarood ha iska soo dhex qabtaan ha saartaan inta ka harsaydana ha maamushaan maxamed cabdullaahi waa nin sixran mar kaluna ogaanahayaan maxamed cabdullaahi saynab gacanta kuguma jirto mar kalaad ogaanaysaa waa kula hadlay haddaad imaqlaysid naa kuuma joogta meesha naa kuuma joogto way tashatay iska tashadheh israaci ayaad iyo khayre iyo qabiilkeedaba israaci haddaad nin rag tahay oo sharaftii daarood iyo sharaftii magacii iyo sharaftii sida soo celinaysid aday kuu taallaa maxamed farmaajow aday kuu taallaa saynab warkeeda way caddaysatay kuu taallaa hadday sharaf leedahay maxay hayteen kalarka kuguma dhegteen khayro waddanka burburanaya kuma sandulaysiin hadday naag sharaf le tahay ku jecesha ku rabto ee marwal qaba ay tahay ee adiga kugu eg ee naagta ay tahay nin ay shalay qabiil ku baratay kaama raacdeen dadku sheegaa waxay dhacday waxay boobtay xoolahay dafi kartay way daftay ayadii akhiradeeda aday ku taallaa maxamed cabdullaahi marka taas aday ku taallaa mar kale ay xasuusanee miidyaha aan soo istaagayo aday dam kuu tahay adayna daawo kuu tahay mar horaa lagu cuni lahaa mar horaa lagu baaba'ansan lahaa mar horaa lagu duban lahaa mar horaa lagu dili lahaa mar horaa sariir lagu saari lahaa mar horaa noloshaada lagu ciyaari lahaa miidyahan kuu soo istaagayaa maanta ku caawinaysaa bannaanka kugu soo istaagay aday kuu taallaa ani marka waxaan leeyahay soomaaliyey bakeeriga caanaha qubta dabaqabashuu leeyahay caanaha markuu qubto dabaqabashuu leeyahay caanaha waa in la daba qabtaa bakeeriga qubtay waa in la daba qabtaa dowladeennii iyo maamulkeennii iyo sharafteenii iyo ciskeenii iyo maxay hayteen shacabka masaakiimiinta dhibaatada ku jirta inaan ka saarno maanta annaga inoo taallaa haddaan soomaali nahay maanta inoo taallaa waa inaan ka istaagnaa waa inaan ka dhidhinaa maxamed cabdullaahi waa nin sixran waa nin qafilan waa nin qol ku xaraysan waa ninaan waxba ogeyn kursiga waa lagu hayaa kursiga khayraa isku haysta maanta wuxuu yiri maxamed cabdullaahi waldiira marka haddaad iscasilaynin waxaa ii cadu yiri kursiga inaa adiga isku haysatid yeesu yiri kursiga anaa isku haysta asaga iyo saynaba kursiga annagaa isku haysana waa degaysaayay tiri khayre kama dejinaysid meesha ilaa haddana dhibka heerka wuxuu nagu soo gaaray waa degaysaayay tiri khayre lama casilayo
marka naag ninkeedii dejinaysa ee baalasha ka rifaysa ee kursiga ka dejinaysa ee ninay qabiil shalay ku aragtay rabta ninkeedii kursiga maanta sharafta iyo sumcadda ay leedahay uu asaga u gaarsiiyey ka tuuraysa arontinks marka inay naag sharaf la tahay horta kow arontinks inay naag caqli badan tahay doqon waaye madaxii ugu sarreeya maanta taagan tahay waa doqon aan caqli lahayn oo qabiil ka daweynaaday laakiin qabiilka daarood waxba uguma dhibaysid kursiga daarood baa iskale daarood baana dhammaysanaya maxamedna waa la iska hor dhaqaajinayaa maxamed iyo eyladiina waa la iska kiin hor dhaqaajinayaa khayra dad dambe ma laynayo dad dambeeta guryaha intuu ugu galo xildhibaano ah ma laynayo shacabna ma laynayo khayre waa shubayaa murursada mar dambeeta ma argudsanayaan waa uga dhammaatay kursiga waxaan ka codsanahayaa jawaariyow oday weyn baa tahay oday sharafle baa tahay is baan kuu hayaa wanaag baan kuu hayaa sharaf baan kuu hayaa arrinta soomaali ku dhacday waad aragtaa dhibaatada maanta noo taagan waad aragtaa waa inaad ka dhiidhisaa sida ugu dhaqsimada badan kursigan laba dhinac waa inaa u ridaa in khayre laga dejiyo iyo in laga wada dejiyo khayre haddii laga dejiyo sayna way raacee maxamed cabdullaahiyow saynab waa ku daysay khayre kursiga hadduu ka dego waa socotay saynab taasaa kaa ballan qaadaya saynab waa socotay saynab waa socotay khayrey raacaysaa waa socotay ha socoto hana dhaafto waddanka intii la burburin lahaa dad xun oo minority oo seenta hawiye uga taalla waddanka ma burburina ha iska baxaan ha israacaan yay nagu soo noqoni waxay boobi karto way boobtay waxay dhici karto way dhacday waxay cuni karto way cuntay waxay dili karto way dishay al-shabaab inay ku xirato dadka inay layso in adeerkeed al-shabaab inay lacagta ku fandhi karayso way samaysay mursada waa al-shabaab saynab waa al-shabaab khayrra waa al-shabaab fahad yaasin waa al-shabaab mustafa dhuxulo waa al-shabaab kulli waa wada al-shabaab hebel roobo waa al-shabaab maxay hayteen ninkii la dhahaya sheekh cali dheero waa al-shabaab ma garatay علي محمد أفيدو والشباب إلى غير كذا كل واحد على الشباب هنا دافان مرك الشباب هنا دافان كو جدا لما بحرر إنا كان نكي عالسقاها هذا إلهي سود دايي قعنت أفلي بها حق لي حلبان كا وين عبد شكورها هرتوان آد بان وشكري نقهيا إلهي بناك كوكيني إلهي نعافي ما تهاكو سيو dadkii la dilay ee adiga staafkaaga ahana ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo laakiin aad iyo aad waxaan kaaga xumayna cabdishakuuro kelmadaad ku dhaqaaqdaa tiri waddanka magaalada muqdisho dad baa marti ka ah may garatay soomaali marti isaga ma aha meeshaa rabtid waddan kasta oo gobolka soomaaliya meeshaa rabta in cabdishakuuro digi kartaa cid aad marti uga noqon kartid ma jirto gobolka soomaali ah dalka soomaaliyeed qabiil aad marti uga noqon kartid horta ma jirto kelmadaa kaa dhacday jawaabteeda waa ku siin lahaa laakiin waxaa ku siiyey brofesor geedi cali maxamed geedi baa ku siiyey jawaabteeda oo nin abgaalo harti abgaala kuu dhaafi maayo ma kuu dhaafay bas waayo waxaan ku oran lahaa baa saa ku dhahay brofesor geedi baa ku yidhi waxaan ku oran lahaa taasna waa kuu caqli xumo apologisekeedana waa lagaa rabaa soomaali gobol kastuu degi karaa cid marti isaga ah ma jirto gobolkaa rabtaad degi kartaa puntland baad tegi kartaa jubbaland baad degi kartaa jubbadaad degi kartaa maxay hayteen caabud waaqa baad degi kartaa dhuusamareeb baad degi kartaa beledweynaad degi kartaa xamar baad degi kartaa gobol aad marti uga tahay ma jirto in cabdishakuuro kelmadaas kelmad khalad kaa dhacday weeye laakiin waxaan ku oran lahaaba brofesorkeena sharafta uu leeyahay caqliga uu leeyahay madaxiisa ayaan kaaga aamusahayaa asaa kuu daayay bakay asaa kuu jawaabay asoo nin hawiya oo abgaala oo harti abgaalayo kuu jawaabay oo in adeerkaa oo qabiil haddaad isugu soo biishootaanna aad qabiil iska kay xigtaan laakiin waa aamusay taa jawaabteeda ku siin maayo bedelkayga waxaan ku oran lahaaba asaa ku yidhi brofesor geedi baa ku yidhi baa kuu jawaabayo taas laakiin waa dembi kaa dhacay in cabdishakuurow waa dembi alla kaa dhagac dembi kaa dhacay weye taas waa dembi kaa dhacay
kaaniga kuwa hadlahaya oo ku doodahaya oo dhibaatada lagu geystay kaaga hadlahaya oo intaas adiga xirneed anigaan meediyaha kuu soo fariisanayay oo aan ku duceynayay ma aha inaan qabiil kugu raacay nin Soomaaliyeed oo shakhsi Soomaaliyeed oo la dhibaateeyaa tahay oo qalad laga galay oo xildhibaana oo wadanka wax u soo qabtay oo madaxweyne isku sharaxayay oo aan istaahilin waxa lagu sameeyay oo aan istaahilin xadgudubka lagu sameeyay anoo gabar Soomaali ah oo qabiil ku fiirin laakiin adiga inaad tiraahdo martiba dalka lagu yahay magaala muqdishada xamar baan marti lagu yahay kaama filanaynin inaad kelmadda ku dhawaaqaysid ka filanaynin laakiin waxa laali wixii jiraba jawaabteedu waxa ku siiyay professorka jisakalaah baan leeyahay geedi ma dhaafinayo intaas mana ku jawaabayo asaga maadaama ku jawaabay asaga nin Soomaaliya asaga nin sharaf leh ilaahay aqliga dadka waa kala dhantaa aqliga waa kala siistaa nin sharaf leh oo caaqila maanta inuu yahay geedi maanta waa ay muuqataa sharafta thank you geedi allah ku sharfo adeer allah ku sharfo walaal allah ku sharfo aqliga waa loo kala dhashaa ma insha Allah aan ku leeyahay professor geediyo ma insha Allah aan ku leeyahay jiro joog ilaahayna ha ku xafido Soomaaliya oo dhan Allah xafido ina Cabdishakuurow adigana Allah ku xafido dhibka ku haysan Allah ka qaado dhibaatada lagu geysan Allah ka boogdayo aku duceynaya markaas waa ku duceynaya anigu markii shakhsi Soomaaliyeed baa tahay Soomaalida qabiil ma kala ahan Soomaali waa wiil yaabtigi waa wiil yayeedis waa wiil adeerkiis Soomaali waa Soomaali marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliyay intaas baan idinku soo dirsaday maanta arrintaas emergency-ga igu timid madaxtooyada aan ka hadlay waana la iga soo wacay dad madaxtooyada jooga information-ka ay siiyay marka waxaan leeyahay Jawaari oo arrintaas si dhaqso leh bir u gal arrintaas si dhaqso leh u gal qolooyinkan al-shabaabka si dhaqso leh shacabka Soomaali uga qabo shacabka Soomaalida waa laga qabtaa ama khayrada tuura ama la isku daraa labadooda khayraha du maxamed tuuri waayana isku dar kursi daarood weeye wasakh uma baahna kursiga khayre sharaftu maxamed ugu geeyay ugu muu hambaynin gobonadu kursigu saaray ugu muu hambaynin qabiilka murursaday maxamed cabdullaahi soo ugu hiiliyay ugu meedan hambaynin laakiin marka uu garanaya hadda waxba ma ogee indhuhu isku haystaay sixirkii baa ka dambadiye markuu miirsado oo quraan la saaro oo diin lala ordo uu xeerada salkeeda soo daabto markaasuu ogaanahayaa khaladka uu shalay galay iyo waxaan kala hadlayay markaasuu ogaanahayaa walaalkay caafimaadna Allah siiyo qashinka la saaray iyo sixirka la saarayna Allah ka qaado dhibaatada haystan Allah ka fujiyo qashinka ku heeraarsan iyo qurunka ku heeraarsan Allah ka qabto wixii dhibaateynaya walaalkay dhibku wadana ayaga Allah ku celiyo ayaga ma aragtay Allah ku celiyaan leeyahay maxamed cabdullaahi anuu ila dhashay dhibkiisa maanta anuu idhibayaa ana hilib ii galay ma nabci waa jecel adduunka anu jeclaa walaalkay ma sha Allah adawgaaga Allah ka qabto xaasidkaaga Allah ka qabto qurunka ku heeraarsan sixirkii qurunkana Allah ayaga ku celiyo Soomaaliya u duceeyo waa dhibaya maxamed cabdullaahi u duceeyo ودبيا محمد عبد الله ودعية ودبيا هاي مركا وين كدقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدائي النبي تقليو يا دولة شرف له يا دولة عصب يا مامل عصب يا قوان عصب يا حلبانة وناكسن يا حلبانة أنا محيتين اللي نيجا مسؤول نجاه ما أنت قرب كين استاجه اللي بعتذر وطن كي شعب كله هاي كقبته إن شاء الله انت أسبان رجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سداي النبي تقليو ينولك ولنتي السلام عليكم ورحمة الله